magaalada Bergen ee caasimadda labaad ee dalka Norway ayaa lagu soo waramayaa in ay ka dhaceen dhac wadareed ama xatooyo wadareed oo loo geystay shirkado iyo xarumo kala duwan oo ku yaala bartamaha iyo hareeraha magaalada Bergen ee caasimadda labaad ee dalka Norway. Booliiska ayaa subaxnimadii saakay oo Isniin ahayd waxa ay ku jarmaadeen xarumaha lagu soo wargeliyay in ay xatooyada ka dhacday. Xarunta koowaad ee booliiska lagu soo wargeliyay in dhaca loo geystay ayaa waxa ay ahayd xarun wada shaqayn ay ka dhaxayso Bergen Health taa oo ku taalo Austria, waxaana lagu soo waramayaa in ay booliiska goobtaasi gaareen iyaga oo baaritaan ka wada. Ayaa waxaa lagu soo wargeliyay dhac kale oo ka dhacay xafiis aan goobta ka fogeen, kuwa oo iyaguna la sheegay in xatooyo weyn loo geystay lagana dhacay qalab badan oo muhiim ah oo ay kombiyuutaradii ay ku shaqaynayeen ku jireen. Taliyaha howlgallada booliiska Erik Loftenes ayaa ku waramaya in ay goobtani gaareen, waxa uuna sheegay in markii ay goobta gaareen lagu wargeliyay in saakay markii ay soo shaqo galeen shaqaalihii goobtan ka shaqaynayay ay dareemeen in xatooyo baaxad weyn ee goobtaasi ka dhacday. Waxa uuna intaa sheegay in goobta laga dhacay qalab kala duwan oo muhiim u ahaa iyo sidoo kale kombiyuutaradii shaqada. Si taa la mid ah ayuu taliyuhu sheegay intii ay baaritaanka ka wadeen goobtan lagu soo wargeliyay isla xafiis aan ka fogeen goobta oo isaguna dhac loo geystay. Taliyaha ayaa sidoo kale sheegay in ay baarayaan xiriirka ka dhaxeeya xatooyo wadareedkan ka dhacay magaalada Bergen. Agaasimaha waaxda isgaarsiinta Bergen Health Erik Vikander ayaa isaguna xaqiijiyay in waaxda la dhacay ay tahay waaxdii daawada xadgudubka iyo sidoo kale daroogada iyo khamriga, kuwa oo uu sheegay in ay yaaleen qalab kala duwan oo muhiim u ah daryeelka iyo wax ka qabashada xaaladaha noocaas ah. Waxa uuna ka gaabsaday in uu faahfaahin dheeri ah ka bixiyo maadaama kiiska uu sheegay in uu baaritaanadeedu socdaan. Intii ay baaritaankan ku jireen ayaa sidoo kale waxaa booliiska lagu soo wargeliyay in dhac xoogan loo geystay shirkadda Solva Fabriken taa oo iyaduna lagu soo waramayo in la dhacay habeennimadii xalay, waxaana la soo warinayaa in iyaduna laga dhacay qalab kala duwan oo muhiim u ahaa taa oo ay booliiska iyaguna ku baxeen si ay baaritaan ugu sameeyaan. Iyadoo uu baaritaankaasi socda ayaa 10kii subaxnimo ee saakay oo Isniin ah waxaa mar kale booliiska lagu soo wargeliyay dhac kale oo ka dhacay xarun ku taalo Damasgårdveien taa oo iyaguna la dhacay, waxayna booliiska isla goobtii gaareen halkaasoo ay iyaguna baaritaan ka wadaan. Taliyaha howlgallada booliiska ayaa sheegay in ay baaritaano xoogan ka wadaan dhac wadareedkan ka dhacay guud ahaan magaalada Bergen qaybaheeda kala duwan, kuwa oo lagula kacay xarumo iyo xafiisyo iyo shirkado muhiim u ah shaqada ka socota magaalada. Waxa uuna intaa ku daray in ay baarayaan haddii uu xiriir wadareed ka dhaxeeyo dhac wadareedkan ka dhacay guud ahaan magaalada Bergen ee caasimadda labaad ee dalka Norway. Halka warka kuwiisa ugu doorkaroon uu idinkaga imaanayo waa Somali Voice in Norway ama codka Soomaaliyeed ee Norway, waxaana idinla socodsiinayay aniga oo ah Cabdullaahi Shiine.